luq aad u cariiriya marka soo insha Allah biidillah waa gudbeena waxaanu isku daynaa inaynu insha Allah aynu marno meel kasta oo tacala oo nabigu maray sallallahu alayhi wasallam inaynu marno ayaynu isku daynaa طبعا ولي واسي سعنا ولي ماشي القرآن كسو دقي ولي ما إنن قارن سو سعى سو سعى walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaana hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo qaarul xir ayaa la yiraahdaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska imaan jiray isaga oo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu koonkan u khalqay isaga oo ka fakarsan habeenada kamid ah oo ay tahay bil ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga طبعا nabigu markuu halkan imaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana horay ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska jooga oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wasallam alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri أخي بكوير ولا كيو ما أنا بقارئ يا أخي بكوير وحنا ما أخري وحنا ما قرأ مركز كوير مرلبات أيوه كوير اقرأ والآخرين ساي أخري أيوه كوير مركز كوير ما أنا بقارئ يا أخي مركز كوير هذا اقرأ وآخرين ساي أخري مركز أيوه وحوي وآخري جبريل ووحو كوير واحد هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوه كوير رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu soo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buurata ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa Khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay markaasay Khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib wuxuuga degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu Khadiija u sheegay markaas Khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kuugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeenayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaaga rajeenayaa waa calaamado cadeynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof aqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo markastaba xikmad leh ayay Khadiija ilaahay ha ka raali noqday sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysano meeshuu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa qaarul xira oo meeshan hadda aan ku suganahay marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan in la dayicin rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu ahaa rasuulku sallallahu wa sallam alayhi إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن قبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي وقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى وقدق لها قرآنك كيو وحوي جند وقد بلها ودرجة وقصرية وكفول لها أيان الله وقرجيني سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو قال ولا ليس كلا أسي شرقرية أو مسلمين تجارسية أو تصمي يشي وحي وقصر دقينا إلهي وحن قبريا سبحانه وتعالى إنه حافظ القرآن كدقه وإلهي أجري حسنات وكسيه خيرك iyo dacwada fidinteeda ayaan Allah subhanahu wa ta'ala uga rajeynaya dhamaantiina waxa idin ka codsanay inaad quraanka ilaahay dayicin oo quraanka ilaahay la akhriyo oo ma ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa way dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaayaa ka akhridaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo xasanad alla soo koobi karin haydan ka siiyo inta ay daawanayseen fiidiyogaana u sii shargar walaalaha kale muslimiinta ilaahayna inagii kulligeenba haynoo ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga waxa weeye barnaamijkeena kan ku daawata waxana way khayr ba idin rajeynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.